iyadoo ay toddobaadkan ku jiraan jaaliyadda Somaliland ee ku dhaqan dalka boqortooyada Saudi Arabia abaabulka xuska qabanqaabada 18 May ayaa magaalada Dammam ee gobolka Sharqiya lagaga dhawaaqay urur dhalinyaro oo lagu magacaabo Solko. Ururkan oo ka shaqeyn doona isku xidhka dhalinyarada Somaliland ee gobolada bariga dalka Saudi Arabia ayaa waxaa loo doortay hogaanka ururka oo kala ah gudoomiyaha ururka Solko Kayse Maxamuud Saciid iyo labada gudoomiye ku xigeen ee ururka Solko loo doortay Faysal Xuseen Jaamac iyo Cabdallah Cabdiraxmaan Sakariya halka maaliyadda loo doortay Cabdisamed Cabdullaahi Ibraahim. waxaan meesha isugu nimi waxaynu qabanayno waxaynu u baahannahay waxa jira dayac fara badan oo jaaliyadda Somaliland ee mintaqada nimka ku nool Saudi Arabia oo dhan markaynu naano jirabaaji dabcan intayadan isu tumiya hawshan ka shaqaysay ee aanu gudoomiyaha wahay waxaan isla garanay haddii ilaahay ka dhigo bilaan dhalinyaro badan oo imika jira been caawa halkan waxaynu joognaa inaynu samayno urur dhalinyaro oo Somaliland ah halkan waxaynu ku dooran doonaa oo musharaxiintoodii fadhiyaa gudoomiyaha ururka dhalinyarada Somaliland ee mandaqada Sharqiya ama bariga Sacuudiga gudoomiye ku-xigeenka